waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhow kooraskeen cusub ee JavaScript aan ugu magac darnay JavaScript. Marka kooraskeen insha Allah waxaan ku baran doonaa luqadda la yiraahdo JavaScript. Hadaba JavaScript maxay tahay? Hadaba JavaScript waxa weeyaan scripting language that follows the ECMAScript specification. Waa scripting language marka imka scripting language waxa weeyaan imka hadii aad soo baratay HTML-ki ma muhiim in HTML kana soo baratid waayo HTML-ku uu ka maarmayno. Hadaba scripting language kimka HTML-ku marka soo baratay markuu web browser-ku soo kaco waad arkaysaa code-keeni HTML-ka hayo ayar mar kaliya isku soo wada qoray, laakiin scripting language-ku code-keena ayuu kolba in yar soo saaraya. Imka markaan hoos u socono page-ki kaba soo qaad ayuu kolba in yar soo saaraya waan ku tusi doonaa wuxuu JavaScript qabato in kamid aan ku tusi doonaa. JavaScript is the language where we develop and program. waxa weeyaan JavaScript waxa weeyaan language-kan aan maanta baranaan development-giisa iyo programming-kiisaba aan code-ka ku qorayna weeyaan. While ECMAScript-guna is the guideline and specification that the language must follow. ay waxa weeyaan guideline-ka ama jihada ama rules-ka isticmaalayso JavaScript-gu ay ECMAScript weeyaan. Marka JavaScript-gu rules-kan isticmaalayso kaba soo qaad variables ka dhigan doonaa waxay variables ku yihiin sida loogu assign gareeyo wax oo dhan waxay isticmaalaysaa ECMAScript. Marka magaceedii hore JavaScript waxa la oran jiray ECMAScript. JavaScript frameworks-ka waxa kamid ah AngularJS, React, Vue.js among others are front-end frameworks. waxa weeyaan kuwani waa front-end waan dhigan doonaa waxay front-end yihiin iyo back-end-gaba insha Allah. Front-end waxa weeyaan kuwan web browser-iska page-keenan intan saro kaliyata in la shaqeeyo weeyaan. Back-end-guna waxa weeyaan kuwa database-ka ku xiriirsan. Imka hadaad form buuxinaysid ama wax register-gareynaysid waa back-end waa programming language back-end ku shaqeynayo database-ka xogtiina galiya loo baahan yahay, laakiin JavaScript taa qaban mayso. Marka waxay JavaScript frameworks-keeda waxa kamid ah AngularJS, React waxaan ugu sii caansan React. waxa weeyaan frameworks designed to be used with web applications and highly interactive websites to simplify common tasks and improve performance. Marka frameworks-keena iyo JavaScript-gu waxay noo qabanaysaa websites-keena ay interactive ka dhigaysaa and simplify common tasks and improve performance-ga. Marka qaabkii uu ahaa iyo interactive ka dhigaysaa interactive waan arki doonaa waxay interactive yihiin. Imka waxaan ku tusi doonaa website-yada JavaScript lagu dhiso. JavaScript isticmaalo waxa kamid ah CycleMon anaga hadaba aan ku tuso maaragtaa website-ka quruxdiisa waxa soo dhan noo qabanaya waa JavaScript. website-ka aad buu qurxinaya waad arkaysaa tan xoog socodsiiyo kolba sawirkeeni si qurxinaya kolba mid kale sida website-kaas kamid ah. waxa noogu xiga website-ka ku xiga waxa la raahdaa haddaan refresh gareyno exit website-ku soo display ama uu soo baxo kolba in baa soo baxaysa aan ku tuso imka maragtaa kolba inta saraha ugu soo baxday inta ba ku xigtay hoos baan wadaya black waxa dhaca waad arkaysaa kolba in ba soo baxaysa meesha maran computer ba ka soo baxaya waad arkaysaa xaq ugu hooseysanay kolba in ba soo baxaysa way kan ugu sii xiga waxa weeyaan Nick Jones bala narrowdesign.com. hadaad imka halka ku dhuftid maragtaa usrogrogaya kolba waxaan noo qabanaya waxa weeyaan waa JavaScript. waxaan noo qabanaya waa JavaScript. hadaan halka ku dhufano tan usrogrogaya kolba color buu noqonaya. way YouTube-ka waxaad ku qori Google-ka waxaad ku qori kartaa top 10 cool sites that use JavaScript kolba mid markaa ku dhufan kartaa marka halkaas aad kooban powerful inay tahay data types
wax fara badan ayaa loo isticmaalaa JavaScript-ga insha Allah applications-na aan ku samayn doonaa applications